bishii hore dalka Myanmar ayaa heshiis ku ogolaaday dib u celinta 700,000 oo ka tirsan Muslimiinta Rohingya ee Bangladesh qaxootiga ku ah. Laakiin waxaa jira caqabado culus iyo colaad xun oo u dhaxaysa buliistaha Rakhine iyo Rohingya. inkasta oo ay horay nabad ugu wada noolaan jireen, rabshado ayaa ka dhex qarxay sanadkii 2012 sida uu ku waramayo Qalib Xasan Baaruud. macbadadan qadiimiga ahi waa hadhaaga boqortooye xooggan oo burasta ahayd, waana taariikh xasuusinaysa dadka Rakhine qaranjabkoodii. hadda waxay ku jiraan dadka ugu saboolsan Myanmar. 5 sano ka hor waxay cadhadii kula jeesteen dariskoodii muslimiinta ahaa. dad badan ayaa ku dhintay Rakhine, waxaana la tirtiray degmooyin badan oo Rohingya ah. dhibanayaashii badbaaday waxay ku xidhan yihiin xeryo ay dawladdu leedahay. tani waxay bilow u ahayd colaad qadhaadh oo u dhaxaysa qoomiyadaha, waxayna Bangladesh u barakicisay 700,000 oo qaxootiya sannadkii hore. laakiin dadka Rakhine naxariis uma hayaan dariskooda oo iyagaaba cabanaya. waxayna faqrigooda u aanaynayaan dawladda oo waxay leeyihiin dooni mayno Rohingyaha. inkastoo ay nabad ku wada noolaan jireen, waxa isbedelay ciduma hubto. ninkan oo u dooda siyaasadda dadka Rakhine waxa uu leeyahay waa in muslimiinta Rohingyuhu ay u hoggaansamaan sharciga. muslimiin muwaadiniin noqon kara way jirayaan qaynuunka muwaadinimada, balse dhinaca kale waynu hubnaa in muslimiin badan si sharci darro ah uga yimaadeen Bangladesh. maanta qaybo ka tirsan Rakhine waxaad ku arki kartaa dad Rohingya ah. bulshooyinka Rakhine waa kuwa kala qoqoban. sawir-qaadayaashii duubay muuqaalkan waxaa il gaara ku hayay booliis dharcad ah. dadka Rohingyuhuna waa kuwa ka qarsan indhaha dadka booqanaya gobolkan. ugu dambayntii waannu ka dhuumannay booliiska. waxaannu helay koox Rohingya ah oo beer ka shaqaynaysa. khatar ayay u tahay inay nala hadlaan. waxaannu qarinnay wejiyada dadkii nala hadlay. waxay noo sheegeen inay ku nool yihiin cabsi, dhaqdhaqaaqooduna yahay mid la xayiray. aad ayay uga fog yihiin xuduudaha Bangladesh. waa safar khatar ah, laakiin hadday awoodaan waxay ku biiri lahaayeen qaxootiga ku sii qulqulaya Bangladesh.